أظن بس لا ضدك يضلك يوحي أظن بس وإنه ما جاء مثلا بعد لو توبين دي maxay soo garaacay waay وميان garanaya aan qabtay aabe السلام عليكم أبو. وعليكم السلام وعليكم السلام reerkiina sidee lagu yiri aabe wala nimcaysay iga waran reerkii carruurtii ku yiri alxamdulilah annagu waan barwaaqaysanay karooni meydin soo gaaray karooni wad aabe may yaad noogu soo dhiibtay aabe maye maanu araga yaad noogu soo dhiibtay هلو بعدين كمان كنا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تنين كنا الله حالة دقيقة شيء بقول الله لكم وحالة ضوضاء عذرك كان ما شاء الله ما علم بما أنت كدم بيسيس تريس يما قالوا يواوين الباب الله يسكوك الله بي dal markuu waxyeelo u geystaba ka kale u gudbayaa si uu dhaqaalihiisa iyo sumcadiisa dhulka ula galo iyadoo aanu intaa ku joogsanayn ee bulshadiisa in badan oo ka mid ah uu ciidda hoos marinayo sida tan buu ka yeelay China Talyaaniga iyo sidoo kale Iran adduunweynaha oo dhan khatartiisu maalinba maalinta ka dambaysa way sii taraysa Allah raaciga imaanka ka sugan ma jirto Audio Jungle sanadii 1918 iyo loo yaqaanay Faransiis Spanish waxa uu leeyahay tirada oo gaadhaysa 50 milyan taasi oo ka badnayd tiradii dadka heeday badbaday dagaalweynii adduunka ee koowaad maanta ay taariikhdu tahay 2020 adduunweynaha waxa qaabka ka siiyay noole in aadamka ka yar 5 milyan oo jeer iska daa in aad adigu xataa aragto bakteeriyada lafteeda ayaan xataa arkay lama arkay ilaa la soo dhaweeyay ruuc milyan jeer miyay kula badatay sanadii bishii December wixii ka horreeyay xanuunada noocan ah ee loo yaqaan coronavirus dadweynaha kana ahay uu haysan xanuun khatar leh kaliya tadibta ay geystaan aanay dhaafsanayn duriga caadiga ah laba ahaantii saarinta tan waxa isbedeshay markii noolaha kan uu isku bedelay dilaa aan dad iyo dunya toona reebay SARS sanadii 2002 bishii December waxa ka dilaacay dalka China siibahan waqooyigiisa caabuqii loo yaqaanay SARS caabuqa kan oo ku ekaan dalka China waqooyigiisa ahaatay 3 toddobaad gudahood adduunweynaha kale oo dhan ku gaadhay waxa uu ku dhacay tiro dad oo gaadhay 8,000 oo qof waxaana uu dhintay 800 oo qof taasi oo ka dhigisay boqolida dadka cudurkan uu galaaftay intii uu ku dhacay 10% 10 sano kadib sanadii 2012 magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya waxa uu ku arkay doctorka Masriga ah ee Maxamed Ali Zakariya fayraskii hore ee SARS lamida ahaatee fayraska kan oo kala qaaday sida dhaqsaahayda loo kala qaaday SARS hase ahaatee waxa uu beredheereeyay kumanaanka qof ee uu kidfayo caabuqa kan oo isna magaciisa loo bixiyay MERS xanuunka kan ahi waxa uu haleelay 2500 ahaatee waxa uu dhintay 850 taasi oo ka dhigaysa dadka uu galaaftay 430 ka mid ah dadka uu cudurkani haleelay MERS iyo SARS kala hore hadda waxay iskaga mid yihiin hal wax waana isha uu kaga yimid caabuqa kan ahi aadanaha iyadoo oo markii ugu horeysay fayraska keena COVID-19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka China halka kaasi oo laga helo noolo waliba isagoo qasacadaysan
marka laga yimaado MERS, SARS iyo corona hadda waxaa sidoo kale inaga yimid xayawaanka xanuunada aadka u halista badan leh sidoo kale viral diseaseska ee ay ka midka yihiin HIV/AIDS, Ebola iyo Spanish flu-gii ka dilaacay qaaradda Yurub dabayaaqadii dagaal weynihii adduunka ee koobaad. yaa bixiyey maxaa se loola jeedaa magaca COVID-19 ee xanuunkan lagu magacaabay? magacan COVID-19 waxaa bixisay hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka ee WHO, taasi oo u soo gaabsatay CO oo ah corona, VI oo ah virus, iyo sidoo oo kale D oo loo soo gaabsaday disease. 19kan daba socdaana waa sanadkii xanuunkan la helay oo ah 2019. astaamaha cudurkani leeyahay waa daa, qufac, hindhiso, madax xanuun xagga cunaha. haddii aad u fiirsato dhammaan waa astaamihii uu lahaa duriga caadiga ah, laakiin mushkilada ayaa qaar baa jirta. laga yaabaa inaanay astaamahani kama muuqanba qofka bukaanka ah. sideen wada ogsoonnahay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday 2 kiis oo cudurka kan ah, iyadoo oo wasaaradda caafimaadku tilmaamaysa in astaamaha cudurkani leeyahay aan labada muwaadin midnaba keliya waxa uu ka soo baxay baaritaankii lagu sameeyey dhiiggiisa. astaamahan ayaa qofka hayn kara muddo 2 wiig ah, kuwaasi oo khatartoodu haddii ay bukaanka kusii badatay gaadhsiin karaysa dhimasho. su'aal xanuunka kan ah waa ay cidda u nuguli? Macaadka caalamiga ee la dagaalanka iyo ka hortagga xanuunada fida CDC ayaa cilmi baadhis uu sameeyey oo uu ku saleeyay 72,000 oo kiis oo caabuqa coronavirus ah, ku caddeeyey in 80% xanuunka coronavirus dadka uu haleelo in ay bogsan karaan dawo la'aan, halka 14% astaamahani kasoo ifbaxayaan iyaga oo xanuun xoogaayana dareemi karaa, halka 6% kale ee soo hadhay xaaladoodu khatar gaari karto. halka kan ahina waa halka ay kasoo baxaysa dhimashada aadka u tirada badani. hubaal se waxaa jira arrimo dhowr ah oo caabuqa corona qofka uu soo ritay haddii ay u raacaan oo bukaanku aad u dhibtoon karo. waa 2 shay. ta koowaad waa da'da qofka, sababtuna waa qofka weyn ee da'da ah oo difaaca jirkiisu ka hooseeyo kaan dhalinyarta ee xooggan. diraasadan oo tilmaamaysa sidoo kale da'da 40-meeyaha ka hooseeya in percentage-ka dhimashadu aanu ka badnayn 0.3%. waa nisbe aad u yar marka la barbardhiga dadka kale. ka labaad ayaa ah qofka qaba xanuuna dhanka wadnaha amaba habdhiska neefsashada. innaga oo wada ogsoon in xanuunkan yahay xanuun ku dhaca habdhiska neefsashada carruurta yaryar, in ka badan 30,000 oo kiis oo dhimasho ah oo u galaaftay xanuunkan COVID-19, ma jiro hal kiis oo ilmo yar ah oo u dhintay. daawada xanuunkan ilaa hadda lama hayo xanuunkan daawadiisa. waxbaa ka sugan dhakhaatiirta iyo farmasiyada. talow haddaama leeyahay tallaal iyo wax lagaga hortago. may taana waxbaa ku habayaamin. ilaa hadda lama soo saarin tallaal uu leeyahay caabuqan COVID-19. 36 laab oo caalami ah oo ku kaleeyay adduunweynaha daafiisa ayaa tartan ugu jira sidii ay u soo heli lahaayeen tallaalka xanuunkan. waxaana ugu cadcad 2 shay baadh ee uu mid ku yaalla magaalada Seattle ee dalka Maraykanka, magaciisuna yahay Kaiser Permanente, kaasi oo tallaabada uu qaado kula mid uu qaaday shay baadhka kale ee dhiggiisa ee ku yaalla magaalada Paris ee dalka France. waa shay baadhka beesto. 2 shay baa hirdanka ka dhexeeya oo aad u sarreeya. tallaaba marka uu ku guulaystay ee maalin uu ku dhaqaaqo maalinta ku xigta uu kala sheegaya ayaa isna aan dabiirshidin oo tallaabay wax ku oola muujiyey shay baadhka Germany laga leeyay ee CureVac. 203 dal ayaa laga xaqiijiyey kiisas, taasi oo ka dhigan ku dhowaad inuu gaadhay daafaha caalamka oo idin 600,000 oo qof ayaa uu cudurkani soo ritay, halka dhimashadu sare ay u dhaaftay 30,000. aynu isbarbar dhigno dhammaan dadka uu ku dhacay xanuunka kan ahi, imise ayaa uu dilay oo uu ciidda hoos mariyey, imise ayaa ka kacay oo iminkaba caafimaad qaba, hase ahaatee imise ayaa ku jira cusbitaalada. sida ay sheegayso hay-adda WHO, waxa ay tilmaamaysaa in 48.7% ilaa hadda ay ka bogsadeen caabuqa COVID-19, halka ku dhowaad 4% ay u dhinteen, iyada oo 48% kale ee soo hadhayna ilaa hadda lagula tacaalayo cusbitaalada. xanuunkan hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka ee WHO ay ku tilmaantay aafada casrigu
ma laha khatar sidaa u sii badan marka la barbardhigo labadii fayras ee ka horreeyey ee SARS iyo MERS. hase ahaatee waxa uu intaaba dheer yahay kiisaska istaba jooga ee laga soo sheegayo iyo sida aadka u daran ee adduunweynaha oo idil ugu sii fidayo iyada oo la moodo in ay dabayli sido. innagu waxaynu nahay dad islaama, adduunweynaha waad ogtahay inay gaadheen horumarka intaa leeg ee dhan walba ah. tiknolojiyadda iyo shaybaadhka caafimaadka oo maraya abid halkii ugu sarraysay intuu aadani jiray ayaa haddana adduunka waxaa go'doon geliyey isagoo oo sameeyey karantiilkii ugu ballaadhnaa abid noolahaa ilma aragtayga ah. wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu. taasi waxayna tusinaysaa awoodda alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iyo taagdarrada aadanaha. marka laga yimaado tilmaamaha aadka u tirada badan ee aad ku aragtay baraha bulshada ee lagaga hortegaya caabuqan corona, qofka muslimka ah waxaa la gudboon in alla subxaanahu wa tacaala uu cuskado isaga oo akhrisanaya adkaarta soo aroortay ee gelin hore iyo gelin dambaba la akhristo ducooyinka kala duwan ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan ee alla subxaanahu wa tacaala uu kaga magan geli jiray dhibaatooyinka adduunyadana leedahay. ugu dambayn aynu allah subxaanahu wa tacaala ka baranayo inuu ina dhaafiyo uu ina hareer mariyo aafadan adduweynaha hadhaysay innaga iyo dhammaan dalalka kale ee islaamka ah. waa kanaalka 123 Soomaali. fadlan subscribe saar, waqti badan kaa qaadan mayso, hase ahaatee annaga dhiirigelin ayaa ay noo tahay. gambaleelkana furo si uu kuu soo gaadho video walba oo aanu soo gelinaa. videogan like garee, haddii wax talo amaba tusaaleyn ah aad noo haysana noogu reeb comment bilowga.